waad garanaysaan maanta arrinka laascaanood ka taagan oo ka mid ahayd magaalooyinka ugu fiditaanka badan leh qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo magaalooyinka guud ahaan in maanta aan salaad guud ahaanba shacabka ku nool magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa u dareeray tukashada salaadul ciid al-adha kumanaan ka mid ah shacabka ku nool magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa isugu soo baxay garoonka Alamse Stadium ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo isku salaamiyay ciid mubaarak iyo ciid al-caafiya waxaana kala soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco qaar ka mid ah salaadiin iyo cuqaal iyo marti sharaf kale madaxdii kala duwaneed halkaasi ka hadasheen waxa hadalladoodii ka mid ahaa tan dhibaatada ama dagaalka socda laascaanood inaynu raadino xal nabadeed hadduu dhib dhacdo oo dagaal dhaco ama laba qabiil isdilaan ama laba dowladood isdilaan waxa jirka ah in la dhex galo la wada hadlo oo dhex la helo oo la wada hadlo haddaan la wada hadlin xal la gaari maayo haddaan la wada hadlin xalku waa adkaanaya marka waxaan leeyahay taana weligeenba waxa ilaahayna ina amray innaguna aynu ku caanamaalay oo aynu waayara ku nahay in wax waliba ay u baahan yihiin tacab nabadaas waxay u baahan tahay dhinac waliba dhinaciisa si xal ugu raadin lahaa inuu diyaar noqdo innakana ducada muslimiinta xarabka ka dhacday ta magaalada ka dhacday iyo ta muslimiinta ka dhacday aynu ku wada jirnaba ilaahay inuu aqbalo ilaahay qalbigeena inuu soo jiido in ilaahay subhanahu wa ta'ala awoodi bina halkan fadhina wax u gowracaynaa u soonnay u xajeynaa intii tagtana ilaahay ka aqbalo inteena kale ee niyadda ka jecel lahay muslimnimada ee niyadda ka jecel lahay in ilaahay nagu sugo waad garanaysaan maanta arrinka laascaanood ka taagan oo ka mid ahayd magaalooyinka ugu fiditaanka badan leh qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo magaalooyinka guud ahaan in maanta aan salaadii ciid laga oogeynin rabshada iyo mushkilada dalka lagu soo iyo cadow ku soo duulay ay keeneen awgeed ilaahay waxaan ka baryaynaa arrinta inuu naga soo afjaro xukuumaddu meel adag bay iska taagtay hadalkii madaxweynaha ee maalintii u dambeysay 26ka Juun nabad buu ku dhawaaqay nabad hore uu ku dhawaaqay waxaan nabadii iyo gogashii horena waa taala waxaan idinku hambalyeynaya idinku tahnideenaya munaasabada ciid al-adha awgeed تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال عيد مبارك إلهي وحن كبر يا عيد هذا إنه نكون قارسيو عافمات وسعيد علي عثمان حاليس مقالة برعي حرمت قبل